Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. waxaa idin leeyahay happy Mother's Day, and today I have a motherhood moment. taasoo ah I've come to realize carruurteena is high time inaan barno adduunkan wuxuu yahay in a good way, without them being traumatized, without them being intay ka naxaan mise adduunka dhan ay ka baqan, but we can teach them in a way that they can understand, because one thing, markaad ilmaha weydiisid who's a stranger, of which they have a very good definition about who's a stranger. Dictionary ka fiirisid waa sax. Markaad weydiisid who is a stranger, waxay ku leeyihiin is someone we don't know, like magac iyo muuqaalbo aysan garanaynin, waa stranger to them, mashallah tabarakallah, which is okay, one run. But we need to teach them that you can know someone and they can become a stranger at the end of the day. You can trust someone and they become a stranger at the end of the day. Ma fahante? We need to teach them like qofka xun wuxuu ka imaani karaa jiraan, wuxuu ka imaani karaa qaraabo, wuxuu ka imaani karaa ehel, wuxuu ka imaani karaa walaal, wuxuu ka imaani karaa qof isku dhowdihiin, wuxuu ka imaani karaa qof aadan garanayn, maqal iyo muuqaal labadaba. siyaabo badan ayuu ku imaani karaa qofka xun oo maxaa la dhahaa noloshaadii aad iyo aad saameyn xun ku yeesha. Ma fahante? So we need to teach our children at a very young age what is a respectful approach, what is a disrespectful approach. maxaa waaye wax qaldan oo maanta qofka bini'aadinka asaga ku sameyni karo mise ayada. wuxuu ka imaani karaa macalin iskuul, macalin dugsi, macalin balbal joogo, wuxuu ka imaani karaa qof isku dhowdihiin, wuxuu ka imaani karaa qof kula dhashay, wuxuu ka imaani karaa so many things. Like waxaa u kala sheegi karnaa there is mental abuse, there is physical abuse, and there is sexual abuse. waxaana jira wax trauma la dhahaayo. waa inaan barnaa, waa inaan tartiibku ugu abaabina nolosha dhabta ah waxay tahay, without them being traumatized. It's not a must inaan ku khaylino, inaan dhahno maxaa meeshu taagan tahay, maxaa intuu maray, maxaa intuu. We need to explain, inaan dhahno maxaan ha sameynin, maxaan u sameyninin. I know you've noticed carruurta baryahan, they ask every single thing you tell them not to do, why they are not supposed to do it. So explain to them, ha xanaaqin, ha dhihin maxaa su'aale ii weydiine. If they tell you, why am I not doing this, you tell them because of ABCD. Why am I doing this? Because of ABC. يعني faahfaahin ayaad ka siinaysaa cunugii. Meaning markuu wax qabanayo uu ogyahay wixii qaldan iyo wixii saxan. I hope waa isfahmayna. Let's teach our children dadka xun iyo dadka san say u kala imaadaan, wejiyada duwan ay ku kala imaadaan. That's why arkaysid one thing I believe, cunug walbo mise qof walba maanta bini'aadin ah oo wax xun kusoo dhaceen, trauma ahaato wax ahaato, they never deserved it. Ma fahante? So anaga we have a second chance inaan carruurteena qabano oon dhahno waxaan waa qalad, waxaan waa sax. qofka saan hadduu kula hadlo mise hadduu saan ku dhaho mise hadduu saan kula dhaqmo waa wax qalada mise waa wax saxa. Why ay sax u tahay, why ay qalad u tahay. Ma fahante? So next time marka when they get out of in this world, iskuulaha oo kale, meelaha kale aadaan oo kale, hadday wax la kulmaan, they will know how to approach it, and they will know how to come and ask for help. They will know when to ask for help. They will know when to defend themselves. They will know markay wax oo panic maxaa la panic leh aysan ahayn, way kala fahmayaan. Ma fahante? Marka let us teach our children strangers are not only dad on maqal iyo muuqaalkoodii iyo magacoodii ayna garanaynin ay tahay, nooc walba ay ku imaani karaan. Ma fahanteen? So I am telling you all mothers out there, a happy Mother's Day.